السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيني وسلامي دمان أصحابتي أنت هوري أنت دمان وحلايا كسر هذا قلبي فرن قام فرن ولي واحد نقول حجتنا تيركي جعلك نبتاها ما أنت نوا قضب كأفراد ما تير كأفراد وأنا دلغات كجعلك دلغاتكو وعبدالين قفك بني آدم الله سبحانه وتعالى قلبي بسكوا أبو رب السيء ونندتك كوضا السمين وحنا سريرات كويا شاد لغاتكو قلبي داعبة نيت سافية وولي بقاد وين هاي على كابسو سيئو قفكو رجاي ريفهين ونكسن وقاد لغاتكو تيرك أفراد تيرك جعلك دبتها وكتاق لغاتك جعلكو ومركات قفكات جعشها أموجسو سمير فهم يو ولي بقى تناسل حتى مركا أي جيران وحيابك وادك أما خلافات وانا تيرka ugu muhiimsan ee dhisa xiriir waara waana awoodda aad u leedahay in aad u dulqaadato dabeecadaha qaladaadka iyo daldaloolada lamaanahaga adigoo aan jacaylkii aad u haysay dhigaaga waxba iska bedelin haddaba halkan waxaan ku soo koobayaa qodobada ugu waaweyn ee uu ku dhisan yahay dulqaadka jacaylku number 1 waa inaad ahaataa qof u dulqaata qofka uu jecel yahay ووليبا وهذا دلقات كيسو مد حد دافع سي لمانتيسو أما لمانيهيسو أي يقول القادة وقت يدا قار محالدو حل يداي يرجح جيحان سونا نقف قرب في سوية ردغاكي قلب كلا بدا يوحو هي وين هذا هاتا قف وحو البا أين اندبين ووحيابها قار كود أدكو يكتا إلك القاعد كده هي سي ay lamaantaadu ama lamaanaha ugu mashquulin aragtida dheeriga ay nafteeda ku qancinayso ilaan sheedan ayaan wuxuu intuu bunbuuniyo wuxuu ka dhacdhicinaya seena waxyaabaha ugu mashquulin inaad ahaataa qof wax walba aynan dhibin oo waxyaabaha qaar ka taga tusaale arig haddii aan yara dul istaago waxay aragtay in dulqaadku kugu yar yahay iminka oo wax walba ay ku dhibayaan sida hadalka qaarkii ama su'aalaha qaarkood وين قيميسا maxaa keenay dulqaad yarida soo wajahday lamaanaha ama lamaantaada qofku markii uu horay kugu dulqaadan jiray waxyaabaha noocaasa dad jalaq u siimayo oo wuxuu eegayaa maxaa keenay xal ayuu raadinayaa qodobka saddexaad ayaa waxa uu yahay waa inaad ahaataa qof aragtidiisa ama fiiradiisa guud ahaaneed ay tahay mid saliiraad ku leh intuuna hadalku afkiisa ka soo bixin ama ficil intuuna samayn qof iska hubiya oo dhan walba ka rogdhoga wixii uu arko in maskaxdiisa iyo qalbigiisu aynan maarin karin inuu alla dartii uga tago waxa qurux badani arrinkaas ma jiro tusaale markay qofka bini'aadanka ay soo wada wajahaan xaaladaha kan khilaaf haddana saliiraad ku yeesha nafsadiisa qofku waxa yara wanaagsan xaaladahaas oo kale qofku inuu alla dartii uga tago hadduu maareyn karana uu xal u helo okay mar hadduu meesha yimaado shaki waxaad ogsoonataa qofku inuu dal alla uga tago ilaan haddii laisla walaaqdahay waxba ma hagaagaan qodobka afraad ayaa waxa uu yahay dadka maanta joogaahi dulqaadkuba aad ayuu ugu yar yahay oo qaarkood uu ka dhamaaday iyagoo isku qabanaya wax aad u yar
ilaan dulqaadka ay garanayaan ayaa ah helitaan adduunyo iyo qurxinteeda oo in la dhimanayo oo aakhiro ay dambaysahay dadkan ma muuqato burburka noocaas ayaa afadaran ku haya qaar ka mid ah lamaanayaasha nolosha ku midoobay ama isguursaday waana wax aad looga xumaado run ahaantii qodobka shanaad ayaa waxa uu yahay dareenka naxariiseed ee dulqaadka iyo samirku ay ku dheehan yihiin ayaa ah halkan waxaan soo qaadanaya tusaale waliba tusaalahaas oo ah mid aad u wanaagsan waxba ka damqan hadallada qaarkood mid ka mid ah dadkii hore ee wanaagsanaa ayaa masaajid soo galay nin masjidka hurday ayuu lugtiisu ay sii yara taabatay kadib isagoo caraysan ayuu soo booday oo yidhi ma dameer baa tahay waa ku sidee maxaad noogu istaagtay ninkii ayaa ugu jawaabay maya ma ihi qaar ka mid ah dadkii masaajidka ku sugnaa ayaa damcay inay garaacaan ninka aflagaadada sameeyey waxaana uu ninkii wanaagsanaa dadkii ku yidhi isaga taga ninku wax kale uma weydiine wuxuu igu yidhi ma dameer baa tahay aniguna waxaan ugu jawaabay maya dhibaatana ma jirto tusaale aad u wanaagsan waxaana wanaagsan qofku inuu aad u dulqaad badan yahay qodobka lixaad ayaa waxa uu yahay muhiimaddu ma aha in aynu dhag u dhigno hadallada qaarkood gaar ahaan marka uu hadalku yahay mid aan saliya raabtoona lahayn oo been abuura waxaa kaaga filan adigoo adeegsada dulqaadkaaga iyo samirkaaga haddana adigoo muujinaya naftaan jecelahay naftaan ku ahay gabdhataan ka xushaa naftaan jecelahay naftaan ku ahay gabdhataan ka xushaa qodcorkii caddadii ka gadaaltimiyey gugol maanka u taa galab roon midegtaay gugol maanka u taa galab roon midegtaa qorcodkii caddadii ka gadaaltimiyey gugol maanka u taa galab roon midegtaay gugol maanka u taa galab roon midegtaa guddoon hoo kalgacay guntoo kalmugay guddoon hoo kalgacay guntoo kalmugay gurahoo midhihii gaarka aadu lahay gurahoo midhihii gaarka aadu lahay qodobka toddobaadi aqbalidda qaladaadka iyo daldaloolada ma jiro qof dhammaystiran dulqaadka jacaylku waxa uu ku tusayaa in aad aqbasho in lamaanahaagu yahay bini'aadam qaldami kara oo uu leeyahay dhinacyo daciif ah halka aad mar kasta ku dhaleecayn lahayd qaladaadkaas waxaad doorataa haddaad tahay qofka dhigiisa ah inaad u cudurdaarto ama aad si degan ula saxdo qaladkii qodobka sideedaadi ismaqal iyo deganaan wakhtiga khilaafka marka ay dhacaan isfahan waa la'aan ama doodu ay yara kululaato dulqaadku jacaylku waxa uu kaa caawiyaa in aad xakamayso caradaada waa in aad mar kasta hore u socotid oo aad si fiican u dhegaysatid lamaanahaga adigoo raba in aad fahamto dareenkiisa halka aad adigu ka fikiri lahayd in aad istifaacdo ama aad guulaysatid
oo aad dooda kaga xoogaysatid. qodobka sagaalaad ayaa waxa uu yahay tanaasulka iyo wanaagga guud mararka qaarkood. dulqaadka jacaylku waxa uu u baahan yahay in aad ka tanaasuso waxyaabo aad adigu shakhsi ahaan u rabtay si aad u ilaaliso farxadda lamaanahaaga ama badbaadada xiriirkiina. waa in labadiinuba aad diyaar u tihiin inaad dhexda iskugu timaadaan. qodobka 10aad waxa weeye ku taageerida xaaladaha adag. noloshu isku si ma aha, waxaa jira xilliyo adag oo isbedel dabeecadeed, sidoo kale xanuun, dhaqaale xumo ama walbahaar maskaxeed ay soo food saaraan. waa inaad marka dhinac istaagtaa lamaanahaaga adigoo markaas dulqaadku uu yahay mid in iska rab istaago oo waxyaabaha qaar la iskugu dulqaato, adigoo markaa u muujinaya jacayl iyo waliba naxariis gaar ahaaneed, oo waliba xaaladan soo food saartay qofkan aad u muujisid in aad tahay qof dhigiisa ah. sida hadday tahay wax looga baahan yahay qofka bini'aadamka ah inuu ogaado dulqaadka jacaylku inuusan ahayn in qofka la dhibaateeyo, sidoo kale in gacan laga hadlo, in qofka la aflagaadeeyo ama in qofka si hoosa loo dhaleecayo oo markaas qofkii la bahdiro. dulqaadka jacaylka saxda ahi waxa uu ku dhisan yahay gacaltooyo, ixtiraam labada dhinac iyo rabitaan in xiriirku uu hore u sii socdo. looma baahnaa in la isaflagaadeeyo ama qofka kale uu markaas ka ficil qaato oo la isficilaayo. 10 qodob ayaa u muhiimsan markaas.